احنا بنتكلم على اقوى دوري في العالم من الناحيه الفنيه، انما في ظواهر لا تناسب العقيده بتاعتنا. صحيح. ولا تناسب ديننا. طبعا. ده اكبر عقوبه حصلت في التاريخ وذكرها القران قوم لوط. kulanti wanaagsan daawade dhacdooyinka qoomuluudnimada ahi kama soo horjeedaan oo kaliya islaamka ee waxay ka soo horjeedaa xitaa dabeecadda aadanaha. waa hadalka sida weyn saameynta u yeeshay una gelgelay gaalada ee uu jeediyay Maxamed Abu Tariqa, laacibkii hore ee xulka Masar. horyaalka Premier League madaxdiisii afahayeenadiisa dadka caanka ah ee sida tooska baraha bulshada u isticmaala iyo website-yada ka hadla arrimaha isboortiga ayaa qaadaa dhigaya hadalka Abu Tariqa iyaga oo cay iyo xumaan badan dusha u saaraya laacibkan muslimka ah. haddaba sheekooyin badan ayaan kaaga hayaa xogta halka ay marayso xaaladda Abu Tariqa iyo warkii uu baahiyay maalintii Isniintii. muuqaalkan haddii aad sii daawatid ayaadna xogtada heli doontaa saaxiib. like inoo saar muuqaalkan siina share garay. qabiil u dhashay dalka Masar kuna takhasusay ciyaaraha kubadda cagta ayaa carab badan uu ka dhashay hadal uu jeediyay markii 2 daqiiqo uu si toos ah uga hadlay hilinka Bein Sports oo hore loogu aqoon jiray Al Jazeera Sports. markaas waxa uu dhaleeceeyay ololaha xarakaha qaansaroobadka ee Premier League oo ugu baaqay ciyaartoyda muslimiinta inay qaadacaan. TV-gan fadhigiisu uu yahay qadar waxa uu bixiyay 375,000 oo lacagta geniga ah sanadkii hore si uu u cusboonaysiiyo heshiis 3 sano oo uu la galay Premier League. hadda waxaa la leeyahay sida ay qoraysa Daily Nation waxaa macquul ah inuu hoos u dhaco heshiiskii isaga iyo Premier League. waxaan si niyad ah u diidanahay aragtida qabiilkan. afayeen u hadlay Premier League ayaa sidaa yiri: Premier League iyo naadiyadiisa waxaa ka go'an inay taageeraan LGBTQ+ iyo ka mid noqoshada dhammaan kubadda cagta qof walba dabeecad walba iyo hab walba uu leeyahay ayuu afayeenkan yiri. horyaalka Premier League kooxihiisa 20 ah ee ciyaara heerka koobaad dhawaan way ansixiyeen sheekadan ku saabsan qaansaroobadka. calaamada kabtannimo ayaana lagu xadhay kalarkan. ciyaaryahankan ka fadhiistay ciyaaraha ee Maxamed Abu Tariqa waxa uu ka mid yahay dadka ugu caansan kubadda cagta taariikhda Masar. faaladiisan waxay ku soo aaday Isniintii iyadoo ay socotay ciyaartii u dhaxaysay kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo ku dhamaatay barbardhac 1 gool iyo 1 gool. wuxuu ku booriyay dhammaan ciyaartoyda muslimiinta inay qaadacaan ololaha xarkaha qaansaroobadka ee Premier League ka oo loogu talagalay in lagu taageero bulshada LGBTQ ama qowmuluudka ahi. sida laga soo xigtay mareegaha horyaalka, hindisahan waxay sheegaan inay ula jeedaan in lagu horumariyo sinaanta iyo kala duwanaanta. waxayna damacsan yihiin ayay leeyihiin inaynu sameeyno bulsho isku xirnaadi ahaan oo ay taageerayaasha iyo ciyaartoydaba dareemayaan amni aad u weyn. iyadoo aan loo eegin nooca galmo ama aqoonsiga jinsi waa sidii iyagu ay ku doodayaan. laakiin warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciyaartoy badan oo Premier League ay xirtaan xarkaha midabka qaansaroobadka ee xindaabka si ay u muujiyaan taageerada qaniisiinta ama qowmuluudka. Abu Tariqa waxa uu ciyaaraha ka fariistay 2013 boqol kulan ugu saftay xulka Masar ayuuna ugu dhaliyay 38 gool. laakiin intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2014 waxa uu kooxda Al Ahli ee Qaahira ku hogaamiyay 7 koob oo maxalli ah iyo 5 koob oo African Champions isagoo dhaliyay 150 gool. Masaarida ayuu sidoo kale ka caawiyay qarankiisa weeyaan inay hantaan koobka qaramada qaaradda Afrika ee 2006 iyo 2008. ciyaaryahan ahaan Abu Tariqa wuxuu inta badan ka hadlaa aragtidiisa ku saabsan arrimaha siyaasadda. dhowr jeer ayuu taageeray dibadbaxyadii dimuqraadiyadda ee Masar ee horseeday afgambigii Xusni Mubarak ee 2011 iyo 2017. laakiin hadda waxa uu si musaafir ahaan ugu nool yahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halka oo qabiil isboorti ugu shaqeeya Bein Sports. arrintan kaliya kama soo horjeedo dabeecadda islaamka, balse waa mid lidi ku ah dabeecadda aadanaha. doorkeena waa inaan ka hortagno dhacdadan qaniisnimada sababtoo ah waa fikrad khatar ku ah nolosheena. waxay noqonaysaa mid xun, dadkuna ceeb dambe uma arki doonaan haddii aan hadda laga hortagin ayuu raaciyay. waxay ku sheegi doonaan in qowmuluudnimadu ay tahay xuquuq bini aadam. maya, ma ahan xuquuq bini aadam dhab ahaantii, waxay ka soo horjeedaa aadanaha. hadalkiisan kadib
dhammaan website-yada ka faalooda arrimaha isboortiga ayaa qaadaan dhigay laacibkan iyo hadalka ka soo yeeray iyaga oo mid walba uu dusha u saaray ceeb iyo fadeexa ama foolxumo kale oo uusan isaga lahayn iyadoo sidoo kale TV-gan lagu dhaleeceeyay inuu xilligan faafiyo waa sida iyagu ay leeyihiin falal ka dhan ah takoorka kubadda cagta ESPN ayaa warisay in horyaalka Ingiriiska uu wada hadal la yeeshay PEN Sport ka oo ku saabsan faaladii Abu Tariika laakiin natiijada ka soo baxday wada hadalkaasi maysan caddeyn dhanka kale Abu Tariika waxaa ku canaantay faaladiisii PEN ila xog ogaal ah ayaana yiri shabakada ayaa sidoo kale soo saartay bayaan ay ku difaacayso barnaamijyadeeda haddaynu nahay koox warbaahineed oo caalami ah waxaynu matalnaa anagu aynu taageernaa dadka sababaha iyo danaha asal kasta luuqad iyo dhaxal dhaqameed kasta 43 wadan ee kala duwan ayaynu inagu mar walba ka soo muuqano waynu aaminsannahay hay-adda samafalka ee Kick It Out oo diiradda saarta baabi'inta takoorka nooc kastaaba kubadda cagta Ingiriiskana ka dhex shaqeysa ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay oo ay aad uga walaacsan tahay in PEN Sport ay go'aansato inay habboon tahay xilligan in la baahiyo hadallada nacaybka ah Kick It Out waxay cambaareenaysaa hadalkan Maxamed Abu Tariika taageerideena iyo wada jirkeena waxaynu iskugu geynaa xubnaha LGBTQ+ saynu u sameeyno iyaga aad baynu uga xunnahay oo aan uga walaacsannahay in PEN ay go'aansato inay habboon tahay in hadalada naceeba si buuxda loogu baahiyo shabakadooda waxaan ka codsanaynaa inay raaligelin ka bixiyaan siyaana bulshadan qoomoloodka ah falka uu ku kacay qabiirkooda ayuu yiri Paulson oo ah afayeen u hadlay shabakadan dhinaca kale ayay sidoo kale website-yadu u jeediyeen dhankaasi iyo dawladda Qatar iyaga oo sheegay tan inay hordhac u tahay in 2022 dhibaatooyin badan ay dadkan la kulmi karaan inta uu socdo ciyaaraha koobka adduunyada ee Qatar lagu qaban doono dalka Qatar ayaa martigelinaya tartanka xiisaha badan ee World Cup-ka 2022 ma ahan markii ugu horeysay ee uu sidan oo kale Maxamed Abu Tariika fikirkiisa cadeeyo waraysi 2009 iyo BBC Arabi ciyaaryahankan waxa uu si aad u diiday arrimo la xiriira horyaalka kubadda cagta haweenka wuxuuna yiri ma aqbali doono in xaaskayga ama gabadhayda ay kubadda cagta ciyaarto sabab la xiriira caqiidadeena gaar ahaaneed iyo midda diinteena haweenku waa inay guriga joogaan quraankeena kariimka si cad ayuu u leeyahay jooga guriyihiina Abu Tariika ayaa sidaa yiri madaxa fulinta ee Qatar 2022 laakiin talaadadii waxa uu sheegay una sheegay CNN in xubnaha bulshada LGBTQ+ lagu soo dhaweyn doono koobka adduunka waxa uu ku daray intaasi in bandhiga kalgacalka bulshada uu aad uga xun yahay warkii soo baxay maalin dhaweyd Qatar waa dal qunyar socda inta baan u baahanahay in la ixtiraamo marka laga reebo qof walba xor buu u yahay inuu noloshiisa ku noolaado ayuu raaciyay sanadkii hore Naasir Al-Qadar ayaa xaqiijiyay in calanka qaasaroobaadka ee kor u qaadaya xuquuqda LGBTQ+ ama dadka qoomuluudka ah loo ogolaan doono garoomada tartanka si weyn in loogu soo bandhigo taa oo lagu wado inuu bilowdo November 21 2022 lana dhameeyo December 18 2022 wuxuu sheegay inay u hoggaansami doonaan dhammaan shuruucda FIFA si kor loogu qaado dulqaadka iyo kamid noqoshada ciyaaraha inkastoo Qatar ay si adag uga soo horjeedo qoomuluudnimada markay timaado calaamadaha qansaroobaadka ee garoomada FIFA waxay leedahay xeerarkeeda waxay leeyihiin xeerarkooda iyo nidaamkooda wax kastoo ay noqdaan waan ixtiraami doonaa Naasir Al-Qadar ayaa sidaa yiri